السلام عليكم. maanta waxaan joogaa Winona State University oo kamid ah jaamacadaha gobolka Minnesota. waxaan rabaa inaan idinkaga sheego macluumaad ku saabsan jaamacadan. halkaan aan joogno waa Student Union meesha loo yaqaan ama xarunta meesha ugu qaybta ugu weyn jaamacad kasta waxay qabtaa meesha oo u ah bartamaha jaamacadda ama meesha ardayda ugu badan tahay isku yimaadaan barnaamijyada fara badan ka socdaan. soo raac aniga ku tusaayo hadda gudahaan galaynaa waxaan soo booqanayaa oo aan ugu tagay Dr. Maxamed Axmed oo ah dhowr xafiis ay hoos tagaan shaqadiisa iyo wax oo qabto iyo barnaamijyada hoos yimaada ayaan rabaa inaan wax idinkaga sheego. ayaan u gudbaynaa xafiiskan shaqadii ayaa ka socoto sidaas awgeed ayaan hadda warka u yar gaagaabinayaa. kor ayaan tagaynaa waxaan ku tusi doonaa macluumaad ku saabsan jaamacadan oo ah jaamacadaha ugu muhiimsan gobolkan oo ay ka faa'iideysan karaan ardayda Soomaaliyeed. xaruntan aad arkaysaan waxaa hoos taga ama ku jira dhowr xafiisadood oo ay ka mid yihiin Dean of Student Equity and Inclusive Excellence, Housing and Residential Life. كله كجر دونا عم كتوس دونا برتمها ماشاس أيو دكتور محمد أحمد أيو حولها أو كهايو أقول جدا قيبها عندنا وحاجو حفظين كلا دمنا فران بسكيلي أما سقيبتي هراء سودوين تهاي ما في دهولو والله أما السنة jaamacadda waxay ku xun tahay halkudhigeedoodii ayaa meeshaan ka muuqda gudaha u galno. jaamacaddan waxaa la yidhahdaa Winona State University waxay ka mid tahay jaamacadaha gobolka Minnesota. xafiiskan oo Dr. Maxamed ka shaqeeyo oo ugu soo casuumay ayaa wuxuu yahay waxa loo yaqaan xafiiska oo maxay tahay sinaanta iyo cadaaladda iyo sidoo kale waxaa hoos yimaado xiriirada caalamiga ah iyo ardayda Dean of Students ama ardayda meesha laga xukumo laga maamulo. sidoo kale jaamacadda iyo horumarinta oo shaqaalaha iyo sidoo kale waxa loo yaqaan professional development iyo sidoo kale la xiriirka ama faculty relationska. jaamacadda waxyaabaha ay ku caanka tahay waxaa kamid ah waa sida ogtiin waxaa meel u dhow ku yaala horta isbitaalka weyn oo loo yaqaan Mayo Clinic oo dad badan oo Soomaali ay yaqaanaan. sidaas awgeed ay jaamacaddan waxay ku muteysatay barnaamijyo fara badan oo la xiriiro health related ama health sciences oo aad iyo aad muhiim ah gobolkan ka dhigo waxyaabaha dadku ugu yimaadaan. mar aan weydiiyay Dr. Maxamed sababta keentay inuu ka soo wareego California oo Minnesota ugu soo wareegay jaamacaddan ayuu igu sheegay inuu rabo inuu keeno arday fara badan oo Soomaaliyeed oo halkan wax ka barta. gobolka State University System loo yaqaan waa jaamacadda koowaad marka la fiiriyo qiime ahaan. jaamacadda labaadna waxay ka tahay gobolka Minnesota dhan marka la isku daro jaamacadaheeda public ah. sidoo kale marka gobolka Minnesota iyo gobolka Wisconsin la isku daro oo jaamacadahooda public ah ay kaalin saddexaad soo gashay. jaamacadda waxaa waaye top ah oo 12 gobol marka la isku darana 7 soo gashay kaalintaas. micnaheedu waxaa waaye waa qiyaasi kartaa muhiimadda 7 gobol oo isku dhow Midwestiga la isku dhaho area regionkan dhan isku ah in ay noqon karto jaamacad oo muhiim ah. marka waxaa jeclaan lahaa maadaama aan hadda xafiiskan joogo oo Dr. Maxamed uu soo imaad karey inaan idinkaga sheego waxyaabaha muhiimka ah oo ka dhacaya jaamacadda. scholarship yaal badan ayaa jira oo ardayda loogu talagalay oo asagana rabo inuu dadka Soomaaliyeed iyo dadka soo galootiga iyo ardayda oo aan la helin nasiib ay jaamacad ku helaan inuu uga faa'iideeyo oo siiyo tixgelin gaar ah. waxyaabahaas waxaa kamid ah scholarship yaal ama waxyaalo badan oo ardayda lagu siin doono caawinaad waxbarasho. sidoo kale waxyaabaha soo dhaweeya ardayda sida meelaha lagu tukado cuntada oo xalaalka ah waxyaabahaas oo dhan hadda ayaan qaarna socdaan
qaarna horey u jiraan oo wax oo maxay ahayd ardayda ka faa'iideysan karaan. Here at Winona State University, this is waxyaabaha cajiibka ah oo kusoo arkay jaamacadan ayaa waxaa ka mid ah inay leedahay meelo lagu tukado sidoo kale markii aad gudaha u gashid isla meelahaas oo aad ka heli kartid weysadii oo aad si fiican oo raaxo leh ugu weysaysan kartid masjid u malaysid saliyadii meelay yaalaan oo aad ka qaadan kartid oo ku tukan kartid salaada markaad dhameystid meel yarood ku nasatid saligaada agtiisa cidna ku dhibeynin cidna waxba ku dheheynin ka raacdeyneynin lagu cayneynin. sidoo kale waalidiinta waxyaabaha aan jeclahay inaan ku booriyaa waxay tahay ardayda jaamacadan maadaama ay u dhowdahay isbitaalkaas weyn oo idiin sheegay maadaama ay jaamacadan la leedahay xiriir industry ama waxyaalo badan waxaa keena barnaamijyadeeda engineeringka barnaamijyadeeda nursingka iyo barnaamijyada noocyadaas oo kale oo caafimaadka la xiriira aad ayaa dadka oo arrimahaas ka shaqeeya u yimaadaan ardayda inta uga recruit gareeyaan sidaas awgeed ayaa fududeynayso qofkii markuu inta yimaado in uu shaqo si fudud ku helo. arrinta kale oo muhiim waxaa waaye aniga waxaan aaday jaamacad oo aan jaamacad kasoo dhigtay magaalo college townku way ka dheertahay xoogaa magaalada weyn xoogaa inay ka baxsan tahay qofka ardayga wuu ku xaroonayaa wuxuu helayaa waqti uu ku focus gareeyo wuxuu helayaa waqti oo waxbarashadiisa si fiican u daacad iyo ugu noqdo arrimahaas oo dadka khubarada ah ay noo sheegaan mar kasto in ay ka success fiican yihiin office-kan xafiiskan shaqada oo Dr. Maxamed waxaa kamid ah waxa loo yaqaan retention ardayda maaha in la iska keeno bas ardayda in lagu haayo u baahan yihiin inuu maxay ahayd arrimahooda iyo xaaladooda lala socday u baahan yihiin waxaas iyo waxyaabo badan oo asaga khibrad u leeyahay ayuu ballan qaaday una sheegay in uu soo wado hadda samarka ama xilliga oo iskuulka fasaxadiin oo yar waa barnaamijyo noocaas oo kale ah lagu boorinayo bulshada Soomaaliyeed in uu keeno oo anigana kala shaqeeyo in arrintaas iyo sidii lagu horumarin lahaa maxaa yeelay mar kasta oo arday Soomaaliyeed ay wax barata waxay dad ugu jiraysaa bulshadeena meel kasta joogaan gobolka Minnesota waxaan nahay bulshooyinka ugu badan dad ahaan waa inaan ka muuqanaa waana ka muuqanaa meelo badan laakiin in la sii kordhiya oo aad iyo aad looga faa'iideysta opportunities ayaa muhiim. marka maxaad naga filan kartaan samarkan barnaamijyo seminaaryo iyo sidoo kale wacyigelin ku saabsan ardayda Soomaaliyeed iyo qaababka ay uga faa'iideysan karaan jaamacadan iyo jaamacadaha la midka ah. sidoo kale Dr. Maxamed ayaa arintaas sheegay in uu xoog culus saari doono oona uga faa'iideysan doono positionka uu ka jooga jaamacadan gobolka Minnesota waa ubuucdii bulshada Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka joogtay waana muhiim in ay doorkooda ka ciyaaraan dhan kasta oo horumar ah. أرضي بانها يو وبحي ودنكانها يو أرضي بانها يو أرضي بانها